Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo shalay gaaray magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad-deegaanka Soomaalida ayaa shaaciyay inay ka go'an tahay dowladdiisa dhexdhexaadinta maamulka Somaliland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dr. Abiy Ahmed ayaa ku tilmaamay arrintan inay kaalin muhiim ah ay ka qaadan karto xasiloonida gobolka Geeska Afrika. hadalka Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa yimid bil kadib booqashadii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya, halkaas oo uu kula kulmay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya oo ay arrimihii ka wada hadleen ay ka mid ahayd wadahadallada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka uu hogaamiyo ee Somaliland. kulankii Abiy Ahmed iyo Muuse Biixi Cabdi ayaa horey waxa uu soo dhaweeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo arrintaasi ku tilmaantay mid xoojinaysa wadahadallada dowladda federaalka iyo maamulka Somaliland. ila wareedyo ku dhow xafiiska Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya ee Abiy Ahmed ayaa sheegay in dhawaan markaasi ay bilaaban doonaan wadahadalka labada dhinac u dhaxeeya oo ay taageerayso ururka midowga Yurub. sanadkii 2014 ayaa ugu dambeysay inay dhacaan wadahadallada u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamulka Somaliland, waxaana ay kala saxiixdeen xilligii ay socdeen wadahadallada heshiisyo hordhaca oo aan weli la fulin.